Bismillahirrahmanirrahim. Daawad yaal ku soo dhawaada dhamaystirka darsigeena shalay ee ahaa tobanka xirfadood ee bulshada looga baahan yahay inay lahaato ama qof kasta bulshada kamid ah looga baahan yahay inuu lahaado. Tobanka xirfadood waxay kamid yihiin qayb kamid ah barnaamijkii aan ugu magac darnay adiga iyo bulshada. Adiga iyo bulshadan hadafkiisu wuxuu ahaa waa qayb aan ku kordhinayno ama aan rabno in wacyiga bulshadeena ee dareen bulshadeed ahaan uu ku kabo oo dareemkaasi aan xirfadaha bulshadeed ay inoo kordhaan. Marka dhamaystirka tobankii ayaan sheegaynaa, 5 ayaan hore u soo sheegnay, 5tii ugu dambeeyay ayaan sheegaynaa. Marka qodobka lixaad wuxuu inoo noqonayaa mas'uuliyad. Qof kasta wuxuu u baahan yahay inuu lahaado dareen mas'uuliyadeed. Maxaa loola jeedaa mas'uuliyad? Ereyga asalkiisu waa erey af Carabi ah, waxaana loola jeedaa shaqooyinka adiga ku saaran waa lagu weydiinayaa. Yani maxaa la dhahay haddii aad sidii la rabay uga soo baxdo waa waajib ku saarnaa, haddii aad uga soo bixi weysana waa lagu weydiinayaa oo waa lagula xisaabtamayaa. Cidda kugula xisaabtamaysa maxay tahay? cid ugu horeysa oo mas'uuliyadaada inaad ka soo baxday iyo inaadan ka soo bixin kugala xisaabtamayso waa naftaada iyo damiirkaaga waay. Markasta oo damiirkaadi uu shaqeynayo waa markasta mas'uuliyadaha iyo shaqooyinka dusha ka saaran aad uga soo bixayso sidii loogu talagalay. Waxyaabaha qaar waa islawsiin karnaa, waxyaabo yar waa ka soo qaadan karnaa, laakiin wadadii loo baahnaa ama natiijo fiican inama gaarsiinayaan. Sidaas darteed waxaa loo baahan yahay qof kasta inaga mid ah mas'uuliyadaha saaran hadday yihiin kuwa damiirku saaray iyo hadday yihiin kuwa shaqadiisu ay saartay, labadaasba in sida ay tahay aan uga soo baxno ayaa la inaga rabaa. Maxay yihiin tusaalaha kamid ah mas'uuliyadaha damiirku ina saaray? Waxaa kamid ah wadada ayaad qashin ku aragtay ama maxaa la dhahay waxyaabo dhib keeni raba ayaad aragtay inaad ka digi kartid oo dadka uga sheegi kartid ama dhibkii jidka yaalay aad ka leexisid. Mas'uuliyadaha damiirku ku saaray ay kamid yihiin. Waxayna kamid yihiin waxyaabaha iimaankeen uu ku xogeysanayo, imaadatul adha ani tariiqi waay. markasta oo afraad bulshadeeni mas'uuliyada saaran ay siday tahay uga soo baxaan xirfadoodii mas'uuliyadeedna ay korodho, waa markasta horumarka bulshadeeni iyo wacyiga bulshadeeni uu kordhayo. Sifada toddobaad ama skillka toddobaad wuxuu noqonayaa dadaal. Waxaan ognahay sunnada nolosha waxaa kamid ah wax kasta oo qofku u baahan yahay ama wax kasta oo inaad xaqiijisaa u baahan tahay, waxay u baahan yihiin juhdi iyo waqti in lagu bixiyo. Waxna kuuma hagaagayaan adigoon waqti gelin, juhdi ku bixinin, dadaal iyo waliba waxyaabo badan aadan ku bixinin, kuuma hagaagayaan. Sidaas darteed waxaan u baahanahay in sifadaas ama skillkaas ah dadaalkana aan ka dhigano dabeecad. Waxyaabo waxay kamid yihiin dadaalka u baahan in juhdi iyo waqti badan aad nafsadaada kula qabsiiso oo dabeecad ka dhigatid in muddo aad ku dadaashid. In badan oo naga mid ah waxa laga yaabaa in marxalad noloshooda kamid ah ay dadaal sifadooda ah ay kamid ahayd, laakiin muddo marka la sii galan ay iska dhaafaan. Laakiin miraha saas laguma gaarayo. Wax walba waxay u baahan yihiin sabr iyo dadaal uu gaara wantan ay Soomaalidu dhaxdaa way. Skillkeeni sideedaad wuxuu noo noqonayaa toosanaan. Toosanaan maxay tahay? Toosanaanta waxaa lagu qeexi karaa si guud oo kooban haddaan u sheegno qofka ficilkiisa iyo maxaa la dhahayay iyo hadalkiisa oo iswaafaqo, ama niyadiisa iyo hadalkiisa oo iswaafaqo. Labadaas markastoo iswaafajiso noloshaadin ay mabda uga dhigto, waxa waaye xirfadaas waxay ku kordhinaysaa waxyaabo badan. Ay kamid tahay in lagu arko qof leh anshax leh, maxaa la dhahayay jah loo raaco ama dhinac loo raaco leh ayaad noqonaysaa. Aad ayayna uga mid tahay maxaa la dhahay waxyaabaha guusha adduunyo guusha aakhire lagu gaari karan ay kamid tahay. Nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi axaadiistiisa maxaa la dhahay aad u xikmada badnaa waxaa kamid ah saxaabiga markuu weydiiyay nabiyow ii sheeg wax haddii aan sameeyo maxaa la dhahay aan ku guuleysan karo ii sheeg. Waxaa la yidhi qul aamantu billahi thumma istaqim, ilaahay ay aamin kadibna ku toosno wadadaas ku toosno. Yani xadiidkaas ayaa micno badan xambaarsan. Marka waxaan u baahanahay in marka hore wadada aan helno, wadada saxda aan ogaano, kadibna wadadaas aan helnay aan ku toosanaano oo maxaa la dhahay aan ku sii jirno wax badan aan ku sugnaano ayaa loo baahan yahay. Taas ayaa waxay keenaysaa marka macmuruuri waqti in natiijo badan iyo miro badan nolosheena adduunyo taan aakhiraba aan uga gaarno. Qodobkan xiga sagaalaad wuxuu inoo noqonayaa run sheegid. Qofka oo run dhaqankiisa ay kamid tahay oo markasta waxyaabaha uu sheeganayo ka run sheego. Waxay noo horseedaysaa taas daacadnimada nafteena iyo daacadnimada dadka kale ayaa waxay noo horseedaysaa isku dheelitirka nolosheena, waxayna ku siinaysaa kalsooni iyo awood ayayna siinaysaa. Haddaba maxay tahay sababta dadka intooda badan ay beenta u doorbidaan ugana doorbidaan runta ay u doorbidaan maxay tahay? Waxaan ognahay
runtu waxa way wadadeeda way xadidan tahay way kooban tahay hal shay kaliya way yani hal shay dhowr waji oo run ah inuu yeesho way adag tahay balse hal shay markaad sheegayso dhowr waji oo been ah intaas oo been waad sameyn kartaa waxa badan waad u abuuri kartaa halka ay maxal dhahay ay Soomaalidu ka dhaxaan tusaalihii ah reer hamarku isticmaalayeen ee ahaa calina garleh aydidna jidleh maanaha waxay ku tusaysaa yani dhinaca qofna gartiisa siinin qofna gardaraha saarin maanaha markaad leeyahay gari laba qof kama wada qosliso ama kama wada farxiso yani micnaheedu waxa weeyaan run la sheegin way yani marka aad run sheegto micnaheedu qof baa hadalkaas runta ah dhibsanayo laakiin si kasto dad ay u dhibsadaan wadada saxan in qofna looga leexdo ma ahan markaas waxaan u baahanahay in runta aan ku dhiganaano marka aad eegto tusaalahan run aad ka eegto quraanka waxaad arkaysaa yani intaas oo meelood oo runta looga hadlay aad arkaysaa yani suurat tawba oo kale afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin yani inta aad ka kala garanaysid kuwa runta sheego iyo maxaa la kuwa beenta sheego ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين من المؤمنين رجال صدقوا ما أحد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم يعني قرآنك marka intaasoo jeer intaasoo meelood ay wuxuu ku tilmaamaya muhiimada ay runta nolosheen u leedahay iyo nolosheen aakhira ay u leedahay markaas marka waxa fiican in runta ay ahaato xaraga in xiro waxa aan maxaa lahayn mabda lama taabtaan aan laga tanaasuleynin inuu ahaado qofna raaligelintiisa iyo in maxal dhahay aan shucuurtiisa ilaalino aanan runta uga leeyahan sababtoo ah waxay noqonaysaa adigoo wax qaali ah inta ka tanaasulay una tanaasulay wax ragaysa ay taas ku noqonaysaa skillka ugu dambeeyo ugu muhiimsan aan dhihi karno skillska ama xirfadaha bulshada waxa kamid ah samirka qofka inuu samir yeesho yani samirka la'aantiisa skillski kale xirfadihii kore aan u soo sheegnay oo dhan inooma hergalaan inooma suurtoobi galaan laakiin marka aan sifada ama skillka samirka aan nolosheena ku tababarno aan waxyaabaha gaar inaan u dulqaadano aan isbarno waxaan baranaynaa xirfadihii kale ay ahaayeen sida edibta oo kaleeto anshaxa oo kaleeto runta oo kaleeto dareenka bulshada oo kaleeto waxyaabahaas dhan waxa ina barayo samirka ayaa ina barayo culimadu waxay yiraahdaan quraan kariimka 9 jeer iyo ka badan ayaa samirka mawduuc looga hadlay oo lagu sheegay inta badan culimada diinta samirka waxay u qaybiyaan 3 nooc ay u qaybiyaan koo ah in ilaahay daacadiisa aad ku sabarto ataa maxal dhahay sabr ala taa ina sameeyso sifada nooc labaadna waxa way waa الصبر عن المعاصي إن حمها أتك سمرتو محل ده هاي نفط شهوات أي ربطة مركز تو حيابة حنهون أي إنه جيدي سا ودنكاس أي ربطة إنه ود بالس وح أباهن هاي إنه وحيابة عن كسمرنو أو عن كسمرنو طاعد إلهي عن كسمرنو إيو إن سيدو كلت الصبر على الأذى وعلى الامتحان امتحانات كإيو أقبضها نولش عن قوة جهنم سيدو كلت وحين وجبهين إن عن أيجنا كسمرنو عن أدل قاضنو aad u mahadsantihiin social skills kaas ama xirfadahaas bulshadeed ee aan hore u soo sheegnay shantii aha iyo shanta amaanta sheegnay halkaas ayaan ku soo koobaynaa waxaan rajaynayaa in laga faa'iideystay si ay dad kala duwan u gaartaan waxaan rajaynayaa in ehelka iyo asxaabta la wadaagi doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh